Assalaamu calaykum, magacaygu waa Sanaa. Waxaan u soo laabtay inaan idin dhammaystir sheekadayda. Nolol maalmeedkayga waa ay socdeen. Waxaan isku dayayay inaan ka fogaado Nayl. Waxaan ka daalay ayada iyo hadiyadda. Mar kasta ay fur i dhahaysay, waan iska indhatirayay. Waxayna isku dayaysay inay iga soo agdhawaato sidii markii hore oo kale. Laakiin markaan waxa ay damacsan tahay wax cuun. Maalin anagoo fasax ah ayaan qolkayga dhex fadhiistay. Wax anoo akhrisanaya ayaa hooy igu dhahday, saaxiibtaada ayaa kuu timid. Saaxiibtee ayaan ku dhahay. Anoon hadalka dhammaysan ayaa waxaan arkay Nayl. Waxay igu dhahday, waa aniga. Inaad i aragto ma rabtid miyaa? Waxaan ku dhahay, maya, ma ogeyn inaad adiga tahay. Qolkayga ayay soo gashay, wayna fadhiisatay. Waxayna igu dhahday, waan ogay inaan qalad kaa galay, aadna maalintii i saamixin, laakiin waan kuu ballan qaadayaa arrintaas in aan mar kale kugu soo qaadaynin. Hadda kadibna saaxiibtinimadeenna wax baabi'inayo ma samaynayo. Waxaan kugu imaaday inaan kaa cudur daarto iyo inaad hadiyad furtay. Markaas waxaan ogaaday inaysan rabin inay i dhawaatayso oo ay rabto asxaab inaan ahaano. hadiyadda ayaan furay. Waxa ay ahayd boombalo oo ay la socoto waraaq oo ay iigu sheegayso inaan ay saaxiib aad u wanaagsan, aanan la mid ahayn dadka kale. Marka ay sidaas igu dhahday, aad ayaan u farxay. Maalmo ayaa ka soo wareegay. waxaan la yaabay waxa igu dhacayo. jaamacadda iyo meel kaleba ma aadi karo. inaan hurdo oo keliya ayaan rabaa. wejigay wuu isbedelay, haaro ayuu yeeshay, miisaankaygana wuu dhacay, raashinka iyo caraftiisana waan nacay. hooy ayaa aad iigu cabsatay, waxayna ogaatay inuu wax cuun igu dhacay. arrintii ayaa igu dheeraatay ilaa habeenkii saqda dhex aan soo nibdaado, weliba anoo qaylinaya. waxaan arki jiray riyooyin cabsi leh oo haween walba igu soo laabta. waxaan arki jiray nin aad u madow oo madaxiisa dhiig badan ku leh. mar kasta oo ii soo dhawaadana dhiig wuu ka yaraanayay, wuxuuna ku celcelinayay inaan ku dila ayaan rabaa. mar kastana wuu i ceejin jiray, anna aad ayaan u qaylin jiray. mar kasta aan rabo inaan kaco ma kici karo. waxaad u malaysaa in dhulka laygu qabanayo. dhanka dariishadana waxaa iga soo muuqanayay nin dheer oo madow. waxaa kaloo jirtay bisad oo madow oo igu dul soconaysa. subaxdii marka la gaaray, hooyo ayaa ii soo gashay si ay iigu kiciso quraac. waxay ii aragtay anoo oynaya. maxaa kugu dhacay ayay iigu dhahday. waxaan ku dhahay, waxyaabahaas ayaa ii muuqanayo. jinnoon lama ihi hooyo. ma ogi waxa ay iga rabaan, inay iga aargoostaan ayay rabaan. hooyo ayaa hab i siisay, wayna i dejisay. waxayna igu dhahday, wax walba waa ay dhammaadeen, loomana baahna inaad murugooto. waxaan ku dhahay, hooyo, anii keligayga ma seexan karo. habeen walba waxaas ayaan arkaa. hooyo ayaa bilowday inay ila soo seexato. marka aan sidaasba u seexdo, wixii aan arki jiray ayaa igu soo bilaabanayo. waxaan isku dayaa inaan hooyo soo kiciyo, laakiin ma awoodo. maalmo ayaan sidaas ahaa, anoo hurda ama soo jeedaba waxaas ayaan arkayay. ninkii oo madowba oo i ceejinayay, markasta riyada ayuu ku soo laalaaban jiray. maalin ayaa jirtay wax walba aan kala ogaanay. naag oo ay hooyo saaxiibo yihiin ayaa timid. hooyo ayaa ii wacday si aan u salaamo. isla markii ay ii aragtay way iga naxday. waxayna dhahday, maxaa cudur maa ku dhacay? hooyo ayaa dhahday, maalinba maalinta ka dambaysa miisaankeedu wuu sii yaraanayaa, kalarkeedana wuu isbedelayaa. habeenkiina waxyaabo ka cabsiya ayaa u yimaada. markii ay aragtana aad ayay u qaylisaa. waxaan ku sameeyey ma aqaano. hooyo saaxiibteeda ayaa dhahday, waxaan u malaynaa wax cun inay jiraan oo loo baahan yahay sheekh qur'aan saara, waxaana la ogaanayaa wax ku dhacay. waxaan aqaanaa sheekh dadka qur'aan ku aqriya. hooyo ayaa dhahday, ii wac. sheekhii ayay u wacday, balan ayuu u qabtay. maalmo ayaa ka soo wareegay. qur'aan akhrinta marka laygu bilaabay, waxaan noqday sidii aan noqon jiray. waxyaabihii aan arki jiray ayaan bilaabay inaan arko oo markaas aad u qayliyo. sheekhii ayaa dhahay, gabadhan sixir ayaa loo sameeyey si loo dhibaateeyo. sixirka loo sameeyeyna qolkeeda ayuu ku jiraa. sheekhii ayaa bilaabay inuu qolka baarbaaro ilaa uu ka arko boombalihii. waan naxay. waxaan rajaynaa boombalaha in wax laga heli doonin. sheekhii ayaa soo qabtay, wuxuuna dhahay, boombalahan inta muu yaali jiray? maya ayaan ku dhahay, laakiin bil ku dhowaad ayuu yaalaa. haya, xanuunka ilaa goormee ayaad dareemaysay? waxaan ku dhahay, muddo bil ah. markaas ayuu i dhahay, ii fasax inaan baaro boombalahan dhexdiisa. sheekh wejigiisa ayaa isbedelay, asoo dhahaya, waxaa dhexdiisa ku jira, ma rumaysan kartid. waxaa ku jira waxyaaba u shaabaha masaamiirta oo kale. sheekhii ayaa si fiican u sii furay. waxaaba ku jira masaamiir iyo qufulo iyo qoraalo aan la fahmaynin. waxaan kaloo aan ka yaabay sawirkayga oo yar ayaa boombalaha hoostiisa kaga dhegan. markaas ayaan ogaaday neel inay waxaasoo dhan ka dambayso. sheekhii ayaa qur'aanka igu sii aqriyey, anna aad ayaan oonayay. waan fahmi waayey waxaanu oonayo. ugu dambaynna waxaan bilaabay inaan matago. waxaan matagay shay madow ah, waxaan ebedkayga arkin ayuu ahaa. marka aan matagay, nafis ayaan dareemay oo mar hore igu dambaysay. sheekh ayaa hooyo kala dardaarmay inaan mar walba akhristo aayadaha iyo adkaarta oo igu akhriyey, iyo inaan ka taxadaro dadka igu hareeraysan. marka uu sheekha baxay ayaa hooyo ku dhahay,
neel ayaa ii keentay boombalaha, markastana waxay iigu dhihi jirtay hadiyad aan ku keenay ilaali. xitaa marka aan hadiyada furi waayey waa iga xanaaqday, waxayna iigu imaaday si aan hadiyada u furo. markaas ayaan rabay inaan u sheego inaan ogaaday wax walba, sidoo kale aanan cafin doonin. teelka ayaan soo qabsaday, anoo u sheegi raba ayaan asxaabta ka maqlay ayagoo walaalkeeda u duceynaya inuu ka caafimaado shilkii aadka u darnaa ee uu galay. markaas ayaan ogaaday ilaahay inuu u argudayo addoomihiisa. waxa ay aniga igu sameeyeenna ayaga ayuu ku laabtay. qofkii xumaan sameeyana adduunyadan ayaa loogu jarayaa, aakhirana cadaab ayuu ku mutaysanayaa. sidoo kale ma cafinin wax walboo dhaca. nolol maalmeedkayga caadi ayay u socdeen, nolosheedana sida caadiga ah ayay ku soo laabatay. sheekadiina halkaas ayay ku eg tahay. haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaan noo dhahdo.